إلى أفر ولا ومضل أي سوق بنقابيين ضل يرد كل دقن مجالد الجيجة تصو جيت كيد وياه إن دتك مساكين تاهي لغي يابيناني هي سنين وحيكوا أفران يصيدوا كلا دتك مسؤولين تو أي هالملك وضع أفران يضو قف بقى أفرق أو هيستو ولا إيمانيو بتكم إذا ودوين كوين مجالد الجيجة هالكني وامد كم إذا ودوين كهالبولها يكويا لمجالد الجيجة أو يكوا وضع أفريان مضحية مساكين دتك كل دقن قيبة كم إذا مجالد الجيجة هالكني ووضع عير دقيقة مجالد الجيجة دولة الديانka Soomaalida waxa afur wadareed loogu sameeyay shacabka danyarta ah ee ku dhaqan qayb ka mid ah magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalida iyadoo halkan ay ku afurayaan qayb ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale shacabka qaybihiisa kala duwan afurkan ayaa loogu daleeyahay sidii dadku ay u muujin lahaayeen midnimada ka jirta dunida muslimka iyo sidoo kale in la kobciyo ama la weyneeyo wacyigelintana la badiyo sida dadka masaakiinta ay dadku u badan lahaayeen ama ay u baran lahaayeen sida la isku caawin lahaa waxa qayb ka mas'uuliyiinta ugu sarreeyay dawladda deegaanka Soomaalida oo uu ka mid yahay kusimaha madaxweynaha ahna hogaanka nabadgelyada dawladda deegaanka Soomaalida Mubashir Dubadar Raagi iyo sidoo kale xubno ka mid ah golaha wasiirada deegaanka Soomaalida adigiiba dhacay waa la afurayaa aad baan ugu faraxsanahay maaragtay ganacsiga dawladda deegaanka Soomaalida waan u mahadnaqaynaa inay soo abaabuleen inay afuriyaan afur wadareedkan waxaan u mahadnaqaynaa xafiiska ganacsiga ee isaguna hawshan soo abaabulay waxaan qorsheynaynaa intan in ka badan oo wareeg dambe inaan gallo oo dad fara badan oo magaalada ka soo qayb galaan marka waa hawl aad u wanaagsan dadka masaakiinta in la quudiyo hadda waxaan ka soo baxnay ay qurbashoogta deegaanku ay soo qaban qaabisay oo 600 oo qof ahayd tan oo ku talagalkeedu waa 2500 oo qof in lagu maaragtay afuriyo oo afur wadareed la qabto waa ashcaarta mata waa shucuurta islaamka waa haweenan calaamadaha islaamka ay tahay in la muujiyo waxaan ugu talagalay in maaragtay bulshada islaamka ay maaragtay isku furanto isku dhaxgasho maaragtay iscaawiso waxaan halka u nimid hadda anagu uga qayb qaadanayno xukuumad ahaan aanu imanayno mataqaana xafiiska ganacsiga ugu dhex jiro ganacsatada ay sameynayso in ay dhaqan inoo noqoto hadda kadib inaan iscaawino oo bulshada isu dhaxgasho oo dadka masaakiinta loo naxariisto oo kiis wax sadaqaysanayna hoos sadaqaysto tan oo kalena waa shucuuraha waaweyn ee loogu talagalay inaan muujino marka waxaan leenahay wax weyn bay ka bedeli doontaa islaamnimadeena iyo quwadeena iyo jiritaankeena ku muujinaa macnaha waxa looga dhigay dad bulshada isdhexgalkeeda iyo aftir wanaagsan oo loo sameeyay maxsuunta ayaan u aragnaa magarat markaas iyo wanaag baan u aragnaa iyo hambaliyo muxuu ka bedeli karaa maslada والله wax badan buu ka bedelayaa waayo mas'uuliyiintii maanta u sarreeyay deegaanka ka soo qayb galay waa la isfadhax fadhiyaa waa la wada afurayaa marka isdhexgal wanaagsan inuu soo kordhiyo إلى أفر ولا وحأي عاديا كجرتا ودن كان ولا لها نهاية السودان كاسو بالوالبا رمضان تدوينه انت يسكو صباحان أي ودوين ككو أفريان سي أي وغفاء إستان دتك السفر ذا كجرا يصيدو كلا دتك اللغياب إناني هيسنين وحأي كو أفران كواسو إيغونا كفاء إستان كرا